nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayaa masaajidka soo galay abu umaama oo arkay nabiga masjidka dhex jeefa markaa buu yaa aba umaama saacadan masjidka maadi ma jirana maxaa ku keenay bal ii sheeg markaa buu yaa rasuul allah walwali walbahaar baa hayay buu walwali walbahaar oo xaquu kaaga yimiday dayn laygu leeyahay oo layga rabay inaan daynkii aan iska celiyo xilligii la celinaya la jooga aniguna waxaan ku celiyo ma haysta buu markaa buu nabigu ku yiri sallallahu alayhi wasallam duca ayaan ku barayaa duco hada ducada galinka hore aad akhrisatid hal mar galinka dambana hal mar aad akhrisatid hamigana ilaahay azza wa jalla waa ka qaadaya oo ilaahay hamiga uu ka qaadaya daynkana ilaahay waa ka bixinaya buu nabigu ku yiri ku saliya rasuulkeen nabigu ma oran Abdurrahman bin Auf tago deynka ka bixiyo Uthman bin Affan u tago deynka ka bixiyo Abu Bakar ba halkan joogo deynka ka bixin ma oran nabigu sallallahu alayhi wasallam waxa uu nabigu baray duco ayuu baray da ducada galinka hore aad tiraadid mar galinka dambana aad mar tiraadid hamiga ku hayana waa laga faydaya daynkana ilaahay ba ka bixinaya markaa buu nabigu ducada buu siiyay Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan wa a'udhu bika min al-'ajzi wal-kasal وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال أبي أمامة رضي الله عنه دعادي بقاتي مركب وحول دعادي بان بلابون أخرستي همجي هي إلهي وإيقب فيدي دينكين إلهي وإيقب بحيبي أمد النبي عليه الصلاة والسلام مال بو كحرة مال بو جيديني مال بو كجيديني مخلوق كجيديني إلهي بو جيديني حقيسة مخلوق لأن شغاد النبي قال الله صار عالم قال الله كأنه وحي هيد ذات كان إن المخلوقات كأي كل جسين وكجويو وإلهي كحر على النبي قال الله صار إلهي كحر خطبة منبر كيسو النبي قلت أجمع من صاغ إن الرد بادية يا رسول الله مركب النبي خطبة دي جوجي أودا جيستي roob la'aan baa jirta xoolihii way dhamaadeen ya rasuul nabi mubaaraka oo ilaahay barakeeyo baatay gacmaha kor u qaado noo ducee markaa buu nabigu gacmaha kor u qaaday yiri ya allah allahumma aghithna ninkii halkii taagan baa ilaahay roobkii sii daayay jumca toddoba maalmood iyo 8 habeen buu roobku kala gu'i waayay isla ninkii baa jimcadii dambe nabiga mambarka taagan halkiis soo taagay wuxuu yaa rasuul xoolahi way dhamaadeen haddana oo maxaa dhameeyay roobkii baa dhameeyay biyihii daadkii markaa buu nabigu allahumma hawalaina wala alayna ilaahu hareeraha yaga ee ilaahu anaka naga kor qaad buu rasuulku yiri markiiba roobku waa istaagay umada wuxuu nabigu baray dhibaato kasto la soo darista ka dhibaatada xallin kara waa kuma الله رب العالمين وياه ولا تاجر ولا وزير ولا دولة ولا هيئة مي قاضي الحاجات وإلهي كاشف الكربات وإلهي كربضة إن حيستك قاضي كر وإلهي حاجاتك مرادك عن لنا كأنه منك وإلهي عمر بن الخطاب رضي الله عنه زمن كيسي ayaa abaar ba ka dhacday magaalada Madiina markaas xoolihii ba dhamaaday markaas Umar dadkii xooluhu ka dhamaadeen ba magaaladii Madiina ku soo qaxay Umar bin Khattab Allah raali ka noqday dadkii muslimiintii ayuu la hadlaa wuxuu ku dhirigeliyay dadka abaaruhu xoolaha ka dhameeyeen in la caawiyo oo la soo dhaweeyo wax la siiyo reer Madiina nin walba wuxuu aqalka ku haystay buu bixiyay abaartii way daba dheeraato dadkii way ka kici weeday abaartii ilaa markii dambe maalin walba waxa la yiri dad 7 qof ku dhow maalin walba dhimanayso la aasayay dabartii xanuuna ka dhashay markaa Umar bin Khattab hadana warqad buu u qoray Umar bin Aas oo Masar jooga Masar waa dhulkii beeraha lahaa ee wabiyaalka lahaa ee khayraadka badnaa markaa buu Umar bin Aas Umar waa amiirkii guud weeyaan Umar bin Aasna waa waali weeyaan oo wilaayada Masar buu ka yahay maaragtaan amiir wuxuu u soo dirbuu dadkan macaawana reer Madiina abaar baa la soo daristay waxa uu soo diray baa la yiri awr maaragtaan laga soo buuxiyo bor iyo daqiiq iyo maaragtaan saliid oo madaxeeguna Madiina joogo inteeda dambana ay Masar ka soo baxayso safarka intuu leeka ya oo safar dheer weeyaan taas ku dabaxaysata
haddana abaartii way daba dheeraatay way qaadmi way fiidmi weydii nin acraabi iyo reer baadiye ah ayaa habeenada ka mida nebiga agtiisa calayhi salaatu wasalaam ayuu seexday rawdadii nebiga ayuu seexdo markaa buu nebiga manaam ku arkay markaa buu yaa rasuul allah abaartaasaa nagu dhacday xoolihii way dhammaadeen dadkiina hadda way dhimanayaan markaa buu nebigu ku yidhi cumar bnu khadaab u tago waxaad ku tidhahdaa rasuulka ilaahay baa ku soo salaamaya ku dheh laakiin cumarow sidaa ku moodayay maad noqon ka dha buu nebigu kugu yidhi cumarow sidaan kaa filayey maad noqon uu kacay ninkii manaamkii buu arkay riyadii buu cumar u sheegay cumar bnu khadaab muslimiintii oo dhan buu u yeedhay iyo saxaabadii rasuulka raggii waaweynaa ee noolaa wuxuu yidhi war rasuulka ilaahay baa farriintaa ii soo diree ma dariiqii baa ka weecday walaalahay oo itoosiya haa waad weecatay baa lagu yidhi waxaad ku weecatay mar ali markay abaari ay nebiga zamankiisa nala soo daristo nebigu isagaa ducayn jiray calayhi salaatu wasalaam istaciinuu bisabri taasuu nebigu baray ummaddiisa in dadka muslimiinta hadday dhibaata la soo daristo ay adkaystaan ee sabraan ilaahayna baahidooda u sheegtaan yidhahda ya allah yidhahdaan deedna cumar bnu khadaab isla markiiba wuxuu ihi sooma waa la soomay maalintii dambe waxaa loo baxay roobdoon baa loo baxay roobdoon halkii gegadii bankii lagu tukanayay salaada maaragtaan salaatul istisqaa halkii iyakoo taagan ayaa ilaahay roobkii sii daayey ilaa daruurta dhexdeeda fadka laga dhex maqloo la yidhaahdo ataaka alqawthu ya abaa xafs yaa cumar xafsa waa inantiisii umma almu'miniin radia allaahu canha umma almu'miniin xafsa aabbaheedow gargaarkii aad dalbatay iyo gurmadkii ilaahay waa kuu siiyey bashaaraysa baa lagu yidhi abaaraha cidhiidhiga faqriga colaadda cabsida khilaafka cuquubo weeyaan waxaasi maanta ummadda la soo daristo ku dhacday weeyaan cuquubadaasi ma faydmayso ilaa ilaahay oo loo noqdo mooyaane laa taqacu almusiibatu ilaa bidanbin walaa turfacu ilaa bitawba bay culimmadu yidhaahdaan balaaya ummad lama soo daristo ilaa balaayadaa la soo daristay ummadda dembi la galabay balaayadaasi ay ku timiday ummadna ilaahay balaayo masiibo haysata kama qaado kama rafaco ilaa toobad mooyaane marka ummaddu ay toobad keento ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala ka qaadaa balaayada fa ilaahay hanu soo noqon ilaahay hanu soo noqon in taabuu ilaya fa ana xabiibuhum uxibu altawaabiina wa uxibu almutatahiriin baa ilaahay yidhi in taabuu ilaya addoommahaygu hadday aniga ii soo noqdaan oo dunuubta iyo macaasida ay ka soo noqdaan baa ilaahay yidhi fa ana xabiibuhum kii jeclaa baan ahay baa ilahay yidhi ka toobad keenay uxibu altawaabiin kuwa toobad keenay baa ilaahay yidhi tawaabiinta soo noqonayana waan jecelahay wa uxibu almutatahiriin kuwa tahiraya jidhkooga ee qalbigoogana tahiraya ee dunuubta naftooda ka tahirayana waan jecelahay baa ilaahay yidhi wain lam yatuubuu ilaya hadday addoommahaygu aniga ii soo noqoni waayaana ii toobad keeni waayaana fa ana tabiibuhum anigu waan dawaysan baa ilaahay yidhi waan dawayn oo muxuu ilaahay nagu dawaynayaa ubtaliihim bilmasaa'ibi liudahirahum min aldunuubi waalmacaa'ibi dunuubta ay galeen waxaan kaga maydhayaa baa ilaahay yidhi balaayooyin iyo masiibo ayaan u keenayoo ku ridayaa baa ilaahay yidhi si dunuubta iyo macaasida ay ku dhaceen aan uga maydha baa ilahay yidhi addoommahayga marka faqri hadduu muslimiinta la soo darso faqrigaasi waa dembi dhaaf abaar haddaad maqasho muslimiin bay ku dhacday abaartaasi waa dembi dhaaf xanuun baa muslimiinta ku dhacay haddaad maqasho xanuunka la soo darsay waa dembi dhaaf mucaad binu jabal abaa cabdiraxmaan allaha raalli ka noqdee fii caami طaacuuni camwaas waa طaacuun taqriiban 70,000 baa lagu qiyaasa dadka ku dhintay طaacuunkaas waa xanuun jirka dusha ka soo baxaya deedna qofku u dhimanayaba khalaas affection xanuunkaasi ayaa koo jooga falastiin buu ku dhacay marka waba cubayda ku dhintay mucaad binu jabal baa ku dhintay saxaabada rasuulka raggi ugu qiimo badnaa baa xanuunkaa ku dhintay walaakiin mucaad binu jabal allah raalli ka noqdee mambarka isagoo dul saaran xanuunkaas sina inankiisii cabdiraxmaan buu hayaayoo sankaraada mambarkuu soo fulo khudbaddii jumcada ayuu jeediyo wuxuu yidhi alaa inahaa raxmatu rabbikum wa dacwatu nabiyikum wa qabdatu saalixiina min qablikum allaahuma ajcal ilaahayow hadal macnihiisu ahaa
ألا انتبهوا براروك أبو يدي حنون كان طاعون كان إن لسه درسي إنها ليلي وأنا حريص إلهي حقي سكاتم يدي وأنا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام والنبي محمد عليه الصلاة والسلام وحوج على إن صحابتي سؤال بيدا كيما دان يكو وذا الشهدايا قفك طاعون كل انتنا وشهيد وإيام وقبضة الصالحين من قبلكم dadkii wanaagsanaa inaga horeeyayna markuu ilaahay adduunyada ka qabanayo xanuunkaas ilaahay ku qaadi jiray gacmaha intuu kor u taagay buu ilaahu ala muad reerkaygana ilaahu xanuunkaas waa naxariise reerkaygana ilaahu xanuunka wax ka soo gali buu yiri dadna markaasuu ka baxay khudbadii buu ka baxay gurigiisii buu tagay inagiisa Cabdiraxmaan wuxuu tagay markaas sankaraadkii ku soo baxay khalaas oo dadka hareeraha ka fadhiyaan markaasuu Mucaad bin Jabal baa hadlo ku yiri yarkii baa hadlay abihi Cabdiraxmaan baa hadlo yiri ya abati alhaqu min rabbika fala takunanna min almumtarin abahaygii wanaagsanaaye macaanaayow ajashu iyo dhimashadu waa xaq rabbiga bay ka timaadaa oo qof walba adduunyada uu ka dhimanayaaye fala takunanna min almumtarin kuwa xaqa ilaahay ka shikisan adigu ha noqon buu ka yiri marka Mucaad bin Jabal lilma ka daadato wuxuu yiri isaguna satajiduni insha Allah min as-sabirin amma anigana waxaad heli doontaa inaan kamid ahay kuwa saabiriinta adkaysta inaan kamid ahay baad heli doontaa buu ka yiri dadna inankiisii markiiba naftu ka dhacday isagii baa ku xigo haddana ku dhintay ma cabsoonayaan kama baqayaan ilaahay geerkii iyagu inay dhintaana diyaar ba u yihiin mise inay noolaadaan midkay diyaar u ahaayeen innaguna maxaan diyaar u nahay inaan noolaano daad noolaan karaysa iska noolow dadkeena maanta dhimashada waan ka baqaynaa xanuunkaan ka baqaynaa faqrigaan ka baqaynaa dhib baan ka baqaynaa ducafaa uliimaan baan nahay naku maanta laakiin asxaabu Muhammad radiyallahu anhum shay kaliya bay ka baqayeen iyagu dunuubtooday ka baqayeen bas hay ka baqayeen dunuubtoon bay ka baqayeen limaada laana dambiga waxa ku dhex jirta ilaahay caradiisi ba xawla soo xaday geel buu soo xaday geelii way ku baxeen marka abu nabiga uu yimid sallallahu alayhi wasallam wuxuu ya rasuulallah meel heblayaan geel ka soo dhacay buu bari hore waana igu tageen haddana waxaan diyaar u ahay buu in xadka la mariyo la iga jaray buu tuug maxaa lagu sameeyaa markaa was-saariqu was-saariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah ila aakhir al-aaya gacanta in la gooyo diyaar u yahay laakiin aakhirada in cadaab lagu aakhira lagu cadaabo ka baxsanaya tadamba iyo kala weyn tan hore lama weyno markaa buu nabigu halka ay fadhiiso dadna rag buu nabigu diru yiri reeraha dhulka degan rag uga yeedha waa loo yeedhay markaa bay nabiga u yimaadeen hal fiikum as-sariqa buu nabigu yiri tuuga ma nagu dhacdo xoolama la naga xaday bari ha intaasoo neef ba muddo xilliga laga joogo la naga xaday markaa buu nabigu yiri waa ka hadaba ninkii naga xaday cidna ma soo qabanin alla ka cabsi qalbigiisa ku jira ayaa keenay xadka Allah marina daawada buu nabigu yiri qisaas qaado gacanta ka gooyay buu rasuulku yiri markii la qaaday ee halkii qisaaska loo waday ayaa nabiga ilma ka daadatay calayhi salaatu wassalaam marka Ali ibn Abi Talib nabiga ag fadhiyo ku yiri ya rasuulullah maxaad la ooyeysaa noo sheeg wuxuu ya Ali maxaan u ooyeen nin asxaabtaydii kamida ummadeydii kamida ayaa hortiina gacmaha lagu jarayaa marka abu nabigu yiri nabi Allah adaa ka gooy yiri ma ka dhaafnaa wali laga ma gooyne markaasuu yiri may waa xukun waa qisaas waa xadkaas waa amar ilaahay weeyaan xadka ilaahay in la fuliyana anu waan u taaganahay buu nabigu yiri laakiin inta aanad ma aragtaan aniga la soo gaarsiinin iska soo cafiye buu nabigu ninka soo cafiyo iska kiisamaha isa samaha gacanta laga gooyay marka gacantii laga gooyay buu alxamdulillah gacantii oo go'an buu cirka u taagay isagoo ilaahay ku xamdinaya markaasuu intaas ayaa rabtay jirkoo dhan naar inay ku tuurtay iyadana abaalkeygii mariyay buu يا الله midkalo saxaabada kamida ayaa waqti dhahira xilli waqti dhahiro ciidadu ay kulushahay oo magaalada Madiina uu dhex socdo ayaa inan yarba oo ka soo horbaxday gabadh yar
markaa buu qabsado u dhunkaday wax kale kuma sameyn markuu masaajidkii tagay buu ninkii seexan waayay dambi baad gashay waa dhunkasho inagana dadkeena maanta muslimiinta qaarkood dunuubtii kabaa'irka iyagoo ku dhex jira haddana ayay qoslayaanay barjaynayaan taslama kabaa'ir zinadii tuugadii shirkigii kibirkii sixirkii balaayo iyagoo kabaa'ir dunuubtii waaweyneed salka dhexdeeda ugu dhex jiro dhex fadhiya ayay isku haystaan inay waxbaba samaynba asxaabu muxamedna hee inan yar oo dariiqa ku helo labadaa dhinac uu ka dhunkaday ayuu ka seexan waayuu yidhi dembi weyn baad gashay ilaa uu nebiga u yimaado calayhi salaatu wasalaam yaa rasuulallah dembigaasaan galay xadka hallay mariyo markaa buu nebigu yidhi fadhiiso waxyigaa markaa soo degaya ila qur-aanka shareecaddeena islaamku hal mar keliya ma soo wada degine kolba inta ummaddu ay qaadi kartay shareecaddu soo degaysay kolba inta iimaanku ziyaado ayuu qofku shareecadda qaadi karaa kolba inta shareecadda ay qaadi karaan asxaabtu ayaa shareecadda la soo dejinayay oo xataa taxriim alkhamr khamriga marka la xarimayey mar keliya lama xarimin jaranjaro ayuu soo maray taxriimku jaranjaro waxaa loo sheegay oo la yidhi manfacana uu leeyahay oo qur-aanka wa min thamaraati الnakhiili wاlacnaami tattakhiduuna minhu sakaran waxay ka sameeyaan sakhradda khamriga ka sameeyaan baa qur-aanka loogu sheegay markaasaa haddana la yidhi xukunkii labaad ee ku xigay wuxuu ahaa baa la yidhi laa taqrabu الsalaaةa waantum sukaara xataa taclamuu maa taquuluun war bal salaadda uun ha imanina ininkoo sakhraansan ilaa aad ka ogaanaysaan waxaad leedihiin ma saxba mise waa qalad haddana waxaa ku xigay ilaa la yidhaha fahal antum muntahuun ma ka reebtoomaysaan khamriga waa la xarimay be sidaa darteed ba shareecaddu kolba inta iyaku qaadi karaan ayaa shareecadda ilaahay soo dejinayey markaa buu nebigu ninkii ku yidhi ii fadhiiso deedna markaasaa aayaddan qur-aanka nebiga ku soo degtay waaqimi الsalaata طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين إلهي بالي صلاة شانتا وقت أوغا قففك يريري إني قد عي صلاة أدلتي معدين إدقداش يدتو كتين أيا قففك يريري إلهي كوك حين يا وإلهي كوك ترتر يا ذلك ذكرى للذاكرين مركاسو نيكي صحابي أوفر حي مركي اللي عديين اللي قوي قفك يريري كاد عي صلاة ويسقات قادتا إلهي كاقم ميرا يابا markaa buu nebiga u yimid oo yidhi ali haadaa yaa rasuul allah aayaddan maalin keligoon bay ii soo degtay may bal lijamiici ummatii kullihim baa nebigu yidhi adiga kuuguma soo degin keligaaye ummaddaydoo dhan bay aayad u soo degtay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam aayaddaas waxay u soo degtay ummaddaydoo dhan marka dunuubtooday ka baqayeen iyaku dunuub